subax wanaagsan saaxiib xalay intii aad jiifteen waxaa dhacay duqeymo iyo dagaalo qaraar taasi ka soo koob warar dhiilale ayaa ka imaanaya furimaha dagaalka oo ah in macaawisleedii beesha xawaadle ee nafuurnimada iyo geesinimada dagaalba muujiyay ay isaga baxayaan furimaha dagaalka waxaa la soo warinayaa in macaawisleeda xawaadle ay isaga baxeen furimihii dagaal ee ugu badnaa odayaasha dhaqanka xawaadlana ay ku shirayaan magaalada Beledweyne iyaga oo ka arrinsanaya haddii Sanbalolshe xilka laga qaado sidii ay ka yeeli lahaayeen halgankii 2022 wuxuu u muuqdaa inuu noqon karo hal bacaad lagu lisay macaawisleeda xawaadlana ay isku dhiibayaan al-shabaab warbixin dhiiladeeda xambaarsan ayaa soo baxaysa waa subax hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka like saarto channelkana subscribe soo tiraahdo meel dheerna gaarsiiso xogtan degdeg ah ee hadda soo baxaysa duqeymo lixaad leh ayaa kooxda shabaab xalay lagu ekeeyay deegaanka Coosweyne ee gobolka Galgaduud ayaa looga dilay dagaalamayaal 40 ku dhow sidoo kale gaadiid gaaraya 3 gaadiid oo nooca dagaalka ayaa laga gubay dhowr saalbooyin ayaa la dhacay khasaare xoog leh ayaana kooxda gaaray furimaha dagaal xalay xiisad sidaas kama ay soo cusbooneen marka laga reebo duqeyntaas ka dhacday fiidkii xalay deegaanka Coosweyne ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya laakiin wararka dhiilada leh waxay ka soo baxayaan gobolka Hiiraan waxaa la soo warinayaa in gobolkaasi uu ka dhacayo gadood ciidan isla markaana macaawisleedii beesha xawaadle ay u dulqaadan laayihiin tallaabooyinka ay qaadayso dawladda federaaliga ah si gaara tallaabada uu xilkiisu ku waayo taliyaha ciidanka Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sanbalolshe wararku waxay sheegayaan in macaawisleeda qaarkood ay furinta ka soo baxeen odayaashii dhaqanka ee hormuudka u ahaa dagaalkana ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxay ka arrinsanayaan odayaasha beesha xawaadle sidii laga yeeli lahaa xilka qaadis Sanbalolshe ee qaabka dawladda Xasan Maxamuud ay ula tacaamuli lahaayeen sanka xaaji oo ah nin aad u firfircoon 3 jeerna Nisa soo hogaamiye ayaa kaliya lagu dhaliilaa in uu yahay nin isla qabweyn saraakiisha ka hooseysaysa oo aan talooyinka la qaybsan iyo sidoo kale in wada shaqeyn uusan la lahayn saraakiisha kale ee dawladda Nisa markii aad hogaaminayso waxa loo baahan yahay in militariga booliiska iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka aad xiriir lahaato maadaama wax aad ka shaqeynaysaan ay yihiin ammaan adiguna aad sii dheertahaba in aad tahay sirdoon oo aad qariso xogaha qaranka sanka taas ayaa lagu dhaliilaa sidoo kale beeshis xawaadle ayaa ku andacoonaysa iyaduna in sanka xaaji la takooray isla markaana xilkii looga qaadayo nin shalay xilkii uu ku wareejiyay taas oo bahdilaad ay u arkaan odayaasha dhaqanka sidoo baad u aragtaa macaawisleeda xawaadle iyo warkan soo baxay waxaan kula wadaagayaa khudbad hawiyanimada ka hadlaysa oo u jeeday Sanbalolshe oo lagu sheegay in uu yahay nin qabyaaladista ah dadka qaarna ay ku eedeeyaan in qadiyada hawiye kaliya ay ku weyntahay khudbada Sanbalolshe ayaan kula wadaagayaa ka hor muuqaalka like sar channelkana subscribe soo dheh subax wanaagsan saaxiib xooggeena iyo xoolaheena iyo xiskeena aan soo geyno la dagaalanka khawaarijta al-shabaab dhowr maalmood aan isku soo noqnoqonay oo aan idin qudbaynay oo idila hadalnay maantana waxaan jecelnahay inay noqoto maalintii ugu dambeysay oo xilliyada la taagan yahay la idin qudbaynaayo qodba waa dhamaatay war waa dhamaaday wixii hadda haraan waxay tahay dagaalkoo la galo ee intaas diyaar muutiin guul ayaan idin rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaad furmaha dagaalka wacdar ka dhigi doontaan cadowgana ilaahay oo idinka guulsayn doona saasaan rajaynaa haddii ilaahay yiraahdo cadowga yaan la dhayalsanin ayadoo qof kasta og yahay in cadowga uusan sahlanayn horta saas u diyaar garooba ee gala laakiin idinkaa ka xoog badan intaad uga xoog badan tihiin farsamada ugu xoog badan tihiin xaqaad leedihiin dhulka ciidda iyo carrada idin helinaysa dagaalka idinkoo xoog dhamaysta gala raaraarac ayaan lagu gelin dagaalka yaan layda xaman dagaalka waa ku xanuunsan kartaan xabaalna waa laydinku gelin karaa laakiin nimankii waa baqdeen iyo waa biiqeen iyo maxaan ku dhahaa gadaale u soo gurteen iyo ree hebelaa ka baxay iyo hebelaa ka baxay iyo hebel ma gelin waxaas waxaan rajaynayaa inay meesha ka dhammaato dagaalka xanuun uu leeyahay oo dabcan waa lagu dhaawacma oo xinjiro uu leeyahay oo wax walba uu leeyahay laakiin in layda xanta ma rabno dagaalkaas guulaan idinka rajaynaynaa Cali Jeete wuxuu yiri qof kastoo meeshu joogo waa shabaab dad tabar u geysan waa jiraan dad ahna waa jiraan hadda ka hor annagaba tarda markaan tagi jirnay markaan joognay maxaas dadka tarda jooga waxay nala ahaayeen shabaab Soomaa haddaan tagnana wacdarahay dhigan waa la arkay Soomaa dadka loo tagaayo dad shabaabka ku qasban oo haysto inaad xoreysiin rabaa jirta dadkaas culayska haddaad ka qaadina ayaga idinka qaado shaqada meeshaas ka sii wadaay waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inaad xoreysaan la idinka rabaa ee qabay qaab u gubo la idinka ma rabo
laakiin haddana ninka odaga warku sheega waa run ninka annaga naga dhex socda nagu dhex socda oo ayaga ku dhex socda oo biyaha iyaga u sii qaadaya oo annaga naga qaadaya oo hore dhexdeena ku wareegaya ninkaas waa ninka shabaabka waxaan u baahannahay saacaddan wixii loo gaaro wax alla waxa dhulka shabaab jira oo weliba aaggan ka yimid ah dadka deegaankan ah inuu bannaanka soo maro dagaalku maalmo kooban u socon doona haddii la yiraahdo markii la xoreeyana nin walba beertiisa bartiisa waa yaqaanaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda Soomaaliya wax weyn oo sanayda ka filaysaaye warkaasan dhagahooda oo ku dhacan u baahannahay annagu waa inaan isdhaarsanno waa inaan isku dhaarsanno in ilaa dalka laga xoreynayo midkeen uusan gadaal u noqon karin waa ognahay qoysasaad leedihiin danaad leedihiin mas-uuliyad qaasa hayda saaran laakiin mas-uuliyadda qaaska waxay hagaagaysaa midda caamka markii meel la saaro waxaan rajaynaynaa guulaan idin rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo wixii saacaddan loo gaaro annaga haddii aan dawlad nahay waxba nagama dhul yaalliin wixii hadda ka dambeeya laakiin waxaan u baahannahay annagoo ismaqle oo qof walba meeshii lagu aadiyey uu aadaayo oo qof walba saacaddii dagaalka la geliy uu galaayo oo qof walba saacaddii dhaqaaq la yidhaha uu dhaqaaqaayo oo aan isbarbar yaacin oo aan isku garab dudaynin dagaalka inaan galno oo waxaan idinka codsana ismaqalaan idinka codsana waxaan idinka codsana dagaalka xeeladihiisa dadaa saraakiil ah dadaa madax ka ah isagaa idinku hagi doona istaraatiijiyaadkooda waqtiyada la gelaayo meelaha laga gelaayo sida loo gelaayo inaad uga dambaysaan madaxdaas asaga ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u horeyso iyo hogaamiyaashiina saasaan codsana marnaba yaysan dhicin qofba qof inuu qiyaamo marnaba yaysan dhicin qofba qof inuu dagaalku uga baxo marnaba yaysan dhicin xilliyadan oo kale gadoodka iyo maxaan ku dhahaa aniga hebela saas iyo hebela saan iyo meesha in laga saaran u baahannahay waxaan rabnaa wax kasta oo xumaana saacadaas meesha in lagu duubo faataxada aan marno annagoo urkula dagaalkaas aan galno annagoo sheegeen bidix midig haysan oo gacmaha haysan farkii foolmada dagaalkaas inaan galno guulaan idin rajayna qorraxdan iyo insha Allah wixii hadda la ka dambeeyana neecaw u bixaysin roob ay imaan doono barwaaqo ay imaan doonta dagaalkaas niyad sameeyaha lagu galo dagaalkaasna inaad guul ka keentaan aan idin rajaynaya hadii Ilaahay yiraahdo martabana annagu hadda maalin kasta in idin la hadalno gubaabay naga tahay oo mididu waxa la yiri moogtahay wixii midi waa bir Soomaa mididaas in la gubo waaye in la tumo waaye in la soofeeyo waaye processkaas ay maraysaa sababta laydu ku soo noqonayo oo laydila hadlaayo oo leewada wacyi gelinayo waxay tahay dagaalka inaan u xoog dhameysano oo aanan marnaba uusan waxba naga dhulol guul ay idin rajaynaya waxa noo ballama dagaalkood guul ku keentaan annaguna waa idin garab taaganahay insha Allah khayran isku ognahay